min usuuli lwarac in la dalbo kasbashada la kasbashanayo xalaasha waxa weeye waa usuusha waraca inaa xalaal miirasid oo ah qof ma garanaysaa xalaasha cuno aad tahay waxa weeye waa usuul alwarac waa asaasu taqwa iyo cabsida asaaskeedana waxa weeye waa inaa xalaal maahane wax kale aadan qudanayn. qodobka ugu dambeeya aynu kusoo koobano qodobkaasuna uu ku tusinayo ama uu ka mid yahay qodobadii ama waxyaabihii kugu kalifayay inaa cabsi la timaadid ama aad ka mid noqotid dadka ilaahay subxaanahu wa tacaala ka cabsada waxa weeye as-sawm waxa weeye waa camalka weyn ee maanta ku dhex jirno waxa weeye waa as-sawm wa la'allakum tattaquun waa soomta cibaadada ma garanaysaa iyo salaatuleelka iyo sunayaasha iyo waxyaabahaas dhan xambaarsan. as-sawm wa aslun qadiimun min usuuli taqwa siduu leeyahay ibnu casaakir siduu leeyahay daahir ibnu caashur wuxuu leeyahay soomtu waxa weeye waa asal hore oo ka mid ah usuushii taqwada wax weligeed baa soo jiray oo weligeed ma garanaysaa ummaddu ay u ahayd inay ilaahay subxaanahu wa tacaala ka cabsadaan waxaa jira as-sawm. markaa soomku waxa weeye waa aslun qadiim min usuuli taqwa. insha allahu tacaala intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa baabkeenii weynaa ee ka mid ahaa sidee baynu ilaahay subxaanahu wa tacaala cabsidiisa u gaadhnaa. ilaahay subxaanahu wa tacaala ha naga dhigo kuwii cabsada iyo kuwii la yimaada cabsi weyn. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.